مشرحة دبادقي سنوات وسمينينو فكوا حندوني إن شاء الله فرق ودكتور عبد الرحمن محمد عبد حاشي وحندوني أنا وحير إذا ما شغالين من دلوقتي يفصلوا بايوغرافي كيسي أما تاريخ مولد كيسي دكتور عبد الرحمن محمد عبد حاشي إنجليش أي مقارنة هاي مركز الله واسكندر يا محيا وحلقيها أرددي جامعة أرددي ما كدوس وصل حيا هالك اللي تشوفان مركز الله واسكندر يا إن شاء الله هذا نقول له دكتور عبد الرحمن محمد عبد حاشي وحول هايستا شهادة وصل رئيسة حق واحد رشو PhD وحول مقطع economics وحول تخصصي monetary and international economics دينا دقالة عالمية وحاول كسر تعطي شهادة جورج ميسون يونيفرسيتي وحاول كلهم هيستا لبس شهادة وماستر أو أبلاي إيكونومكس يو فاينانس أو كتعطي جون هابكنز يونيفرسيتي عبد الرحمن وحاول شهادة السوور يسي أفضل سنة كتعطي بيس يونيفرسيتي أو كتعطي نيويورك وحاول شغل السوور يسي كبلاوي مقالة نيويورك كون سكال بقول إسديتكي waxaan u soo shaqeeyay company-ga la yiraahdo Price Waterhouse Citibank oo headquarters oo ku yaala New York waxaan sidoo kale u soo shaqeeyay investment banking firms Solomon Brothers oo New York yaala waxaan u ahaa senior financial analyst ayuu ahaa meesha ugu sareysa qolyaha dhaqaalaha ideeya maaragtay oo ku takhasusay ayuu ahaa waxa uu report gudbin jiray qolyaha maaragtay xagga dhaqaalaha magaalooyinka waaweyn New York, London iyo Tokyo 1989 ilaa 2004 waxa uu Dr. Abdulrahman ka shaqeynayay World Bank isagoo ahaa Treasury Operation Official in the Assets and Liability Management waxa uuna responsible ka ahaa arrinta si wacan dhageysta uuna manage gareyn jiray banki dakhligiisu uu yahay ama portfolio-giisu uu yahay 115 bilyan not million ma waa bilyan marka ninkaasi aad iyo aad ayuu dhinaca dhaqaalaha ugu takhasusay waxa uu member ka yahay American Economics Association hadda waxa uu ka shaqeeyaa Financial Economic Consultant weeyaan oo maaragtay ku taala Virginia Washington DC area haddii دكتور عبد الرحمن waxa uu qoray buug cusub oo hadda soo baxaya oo la yiraahdo magaciisa la yiraahdo Islamic Banking State in a Shaky Times oo waqtiyada xaaladda adag tahay waxa uuna dardar gelinaya oo maaragtay convert gareynaya bangiyada dalalka Westernka iyo kuwa maaragtay Islaamiga wuxuu doonayaa in maaragtay ay fiican islaamku ka bixinayo dhinaca dhaqaalaha marka waa buug aad iyo aad u cajiiba oo soo baxaya marka taana u toomay insha Allah haddii aan dib ugu noqdo taariikh nololeedkii Cabdiraxmaan waxa uu dhashay 1955 bishii September 30 wuxuu ku dhashay magaalada Sheekh sida hore loo sheegay Dr. Cabdiraxmaan abihi waa Maxamed Cabdi Xaashi oo ahaa madaxweynihii hore ee Puntland State of Somalia hooyadii waa Raawi Cumar Mursal sidii hore loo sheegay xaaskiisa hooyadiisa qaaliga waa Munaxaj Cabdi oo iyaduna aan ka yareysan Cabdiraxmaan haddana ka shaqeysa State Department-ga ee Mareykanka ka shaqeysa dhinacii waxbarashada ee Soomaaliya dhinaca elementary-ga Cabdiraxmaan waxa uu ka soo baxay Laascaanood Elementary School 1964 ilaa 1966 Horn Elementary School 67 Intermediate Schoolkiisii wuxuu soo dhigtay meelo kala duwan Practice School oo ku yaala maaragtay Bulsha Educational Shanghai ku yaala 1968 ilaa 1969 Lafole Administration School ama Lafole Teaching College 1970 waxa uu kaloo dhigtay school private 1970 oo la yiraahdo Media Central secondary-giisi waxa uu ka soo dhigtay Banaadir Secondary School iyo 15 May Secondary School ilaa iyo 1972 ilaa iyo 1975
marka aad high schoolka dhamaysid waa xasuustaa Soomaaliya dadkii Soomaaliya maaragtay anoo yar baan ka nimaado ku xasuusanay waxa uu soo dhigtay shaqada qaranka ayuu soo qabtay waxa uu iskuul layiraahdo Dagactuur elementary school ayuu wax ka soo dhigay oo fiican hodan markii uu Mareykanka yimid jaamacadiisa ugu horeysay waxa uu ka dhigtay Bates University waxa uu ku takhasusay accounting-ka BBA ayuu la shahaadada yiraahdo waana certified public accountant CPA ama sida loo yaqaan graduate school-ka waxa uu ka qaatay John Hopkins aan hore u sheegay labada master ee Applied Economics 2003 iyo Master Science of Finance iyo 2005 ayuu qaatay shahaadada ugu sareysa ee hore u soo sheegay PhD-ga waxa uu ka qaatay George Mason University waxaana weeyaan waa Doctor of Philosophy in Economics marka waa ninka aad iyo aad u qaali ah haddana waxaan ku soo celinayaa galbeedkii si uu u soo dhaweeyo sharaxa
Hoy laga orane, helayo, anti ay maan.